soo dhawaada asxaabay waxaan hadda idin tusayaa sida application-ka daaraan loola soo dego. Application-ka daaraan waka halka waa kan wareegaya application-kaasaan rabaa daaraan aan qaaday inaan marka hore halka ka dhaliino kadibna waxaan rabnaa application-ka inaan la soo degno. hadda marka sida mobilka hadda aan ka hadlayo waa Android mobilada loo yaqaano. hadda waa ka waa dhaliiday okay maayri waxaan rabaa inaan dib u la soo dego si aan idinku tuso. hadda application-kii waa ka ima degsana waxaan tagayaa halkaasaan tagay kadibna waxaan dooranayaa Google waxaan dooranayaa sidoo kale Google baan dooranayaa Google-ahan ka gelayaa markaa kadibna waxaan ku qorayaa daaraan waa hoos iga soo baxay laakiin caadi waan u qoray daaraan waa daa laba wadata raa laba wadata iyo na daaraan .net weeye waa NET okay Google-ahan ka galay sida la aldigeed wuxuu yiri meesha hore u geeyay sida la aldigeed halkaas saddexda dhibcood ay ku jirto ay ku taalo halkaas saddexda dhibcood oo calaamadda ifinaysa oo calaamadda dhaqdhaqaaqaysa leh baan ku dhufan doonaa. kadibna markaan saa u soo maray halka ato ay ku qoran tahay home halka waxaan ku dhufan doonaa waxa ku qoran ato home screen waa meesha ooda leh meesha ka sareysa ato home screen baan ku dhuftay kadib install baa iri markaan install iri barnaamijkii waa kama ku jiraa meeshaan doonaan geli karaa. hadda meel xoogaa dabayl iyo dhacaw ka dhacayso oo aan xoogaa jawi degan ku qaadanayay baan codka ku duubayaa iga raalli ahaada haddii dabayl dhagihiinu dareemaan. kadib halkan waa ka soo noqonayaa waxaan tegayaa halkan meelahan baan rabaa inay wata application-ka halkaas ii soo galay si aan idiin fahansiiyo markuu soo degayay halkaasuu yimid kadib waa kan mobilka igu soo degay Android-ka ahaa waa ka halkaasaan ka galay xogtii sidii buu iigu soo saaray. haddii qofka uu rabo inuu la soo xiriiro WhatsApp-ku qaybta WhatsApp-ku kaliya oranaya hadduu WhatsApp leeyahay kadibna halkaas igala sheekaysan karaa telefoonadana wuu igala soo xiriiri karaa. sidoo kale videogan wuxuu kaga ceshan karaa qaybta YouTube-ka linkiga aan soo dhigi doonaa. waa kan mar kale waxaan sameynayaa waa dhaliidayaa haddana waxaan ka geli doonaa marka kale halkan hadda waa ka baxay waxaan haddana ku noqonayaa adeegii waxaan isla dooranayaa bartii hadda adeegii wuu noo socdaa sidan buu yiri kadib saddexda dhibcood baan taabanayaa haddana saddexda dhibcood dhankay doontay mobilka ooli kartaa mararka qaarkood falaar bay noqon kartaa gaduudan oo kor u jeeda. okay hadda waa kan at home screen hadda waa home screen waan niri haddii aan ku noqdo hadda weli ma soo degin oo soo degistii waa socota open buu yiri hadda waa furan yahay buu yiri. hadda marka meesha at home screen waxa ku qoran open daaraan.net waa open baa ku qoran. hadday open ku qornato
marka dambe aad taabatid sidaan oo kale open baa ku qorantay waa furan yahay baa lagu yiri waa kugu degay. haddii aan marka aan dib u eego waa kana abka ugu dambeeya weeye abka halkan igu jira. sidoo kale waa dhaliidayaa waxaan haddana isku soo dejinayaa waxaan ka gelayaa Chrome-kan ka gelayaa Chrome-ka markaan ka galo halkaas xog hore igu jiray waxaan qorayaa daaraan oo ii soo baxay automatically waa aniga igu soo baxay daaraan.net go baan oranayaa hore u sii aadayaa meeshii buu i geeyey calaamada falaadha gaduudan baa Chrome-ka ii soo baxday. falaadha gaduudan ama 3 dhibcood bay ku noqonaysaa midkood kay ku noqoto waa kii kale halkaas ku dhufanaysaa falaadha gaduudan ama 3 dhibcood noqotay hoos baan u raacaynaa ato home screen baan haddana tagaynaa halkii sidoo kale install baan dhahaynaa wayno install gareysmay waa ku noqonay ato home screen buu yiri wali ma uu dirmin mar kale aan ku celinay maadaama aanu horey u niri aanu dirnay hadda falaar buu noo inuu hadda wuxuu yiri open buu yiri markii dambe aan haddana meesha ku noqonay 3 dhibcood ama falaadha gaduudneyd meeshii waxaa inoo soo gashay open baa inoo soo gashay to daaraan.net. hadda maxaa noo soo degay 2 jeer baan soo dejinay. qofku wuxuu sidoo kale samayn karaa customer-ka qaybta badeecada kaliya ayuu la soo badeecada uu rabo inuu iibsado hadhowdi joogto uu iibsado waa tagi karaa wuxuu tagi karaa sida tusaale Google-ka marka uu tagayo marka inta aanu nadaamin Google-kii baan blog tagaynaa caadi waan meesha ku qoraynaa daaraan.net kadibna qofku wuxuu awood u sii leeyahay qaybta waxaan niri qaybta macdanta kala niri saas ugu dhuftay iyo qaybaha kale oo ka midka ah qayb ka mid u tagayaa qaybta uu ka helay inuu si joogto ah ula macaamilo kaba soo qaad qaybtaan uu si joogto ah ula macaamili doonaa diyaar uma aha inuu website-ka kale arko qaybtaan markuu rabo kaliya inuu arko column-ka kaliya hadhow kolmo badan baa meesha soo galaya column-ka kaligii soo degsanaya at home screen aad biri kadibna wuxuu siiri waxa kaliya kugu degay markaa wuxuu noqonayaa isla qaybta kaliya calaamada marka waxa soo galaysa Chrome-ka calaamadiisa soo galaysa meesha sidaas marka qofku u galayaa qayb kaliya markaas uu qofku samaystay bes markii aad saa u gashid ba automatically qaybaha kor iyo saaran calaamadaha adiga kuma soo baxayaan anu sababta barnaamijka qofka maamulay baan sidaas kale marka u geli kartaa qaybta doontid marka waana iibsan kartaa wax dheeriyana waa meesha bayno way ku qoran tahay waa hadda iibso hadda haddii marka qaybta kalena waxay noqonaysaa ride mode arag wax dheeraada weeye xogtii dheeraadkeed baad sii akhrinaysaa barnaamijka marka intaasaan ku gabagabeynayaa waa mahadsantii soo dhawaada.